Je suis heureux aujourd'hui de waxaan ku faraxsanahay in aan soo dhaweeyo saaxiibkay oo ah agaasimaha guud ee bangiga horumarka Afrika ee BAD una qaabilsan wadamada Afrikada bari oo Djibouti ay kamid tahay waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa isaga gudoomiyaha bangiga Afrika ee horumarka iyo mas'uuliyiinta oo gor walba taageero hagar la'aaneed nala garab jooga dhinaca maalgelinta mashaariicda kala duwan ee horumarka dalka waxaan maanta qalinka ku duugnay oo aanu saxeexnay heshiis aad u muhiimsan oo faa'iido ballaaran ugu fadhiya Jamhuuriyadda Djibouti kaasi oo ah mashruuca dhismaha isbitaal casri ah oo isagu ka jawaabaya baahiyaha caafimaad ee dalkeena kaasi oo ay soo hindistay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee daryeelka bulshada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan CNSS isbitaalkaasi ayaa noqon doona ka ugu casriyeysan marka laga hadlo isbitaalada caafimaad ee dalka ku yaal waxaan taageero maalgelineed aanu ka helnay bangiga horumarka Afrika taasi oo dhan 9 malyan oo dollarka Mareykanka waxa kale oo iskaashi wada shaqeyn uu naga dhaxeeya bangiga Islaamiga sidoo kale xukuumadda Djibouti ayaa iyaduna ka qayb qaadan doonta dhismaha mashruucaasi lacag dhan 12 malyan oo dollarka Mareykanka agaasimka guud ee sanduuqa CNSS ayaa dadaal ballaaran ka sameysay hore u dhiga adeegyada kala duwan ee caafimaad iyada oo tababar u dirtay dhakhaatiirta reer Djibouti oo qaarkood ay hadda ka howlgalaan waaxyaha caafimaad ee CNSS waxaana si guud ahaaneed sanduuqa CNSS uu iskaashi wada shaqeyn ula sameeyay laamo heer caalami ah oo caafimaad kuwaasi oo tababar kala duwan oo takhasus ah uga faa'iideeyay dhakhaatiirta reer Djibouti ee hadda ka howlgala waaxyaha caafimaad ee sanduuqa CNSS waxaana lagu talajiyaa in talaabadaasi la sii xoojiyo haddii ay tahay xagga qalabka iyo xagga dhakhaatiirta intaba si looga jawaabo mustaqbalka baahiyaha caafimaad ee dalkeena